dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ku sharaxaya ninkan sarkaalka hore ah ee dowladda ka tirsanaa garabka siyaasiga ah haddii aad ogtahay urur walba oo jihaadiya oo dowlad ka soo horjeeda isla markaana dagaalama waxa jira garab siyaasi oo ay leeyihiin al-shabaab garabkooda siyaasiga ah xagee bay joogaan waa wax ugu badan ee la isweydiinayo gudoomiye degmo mid gobolka ka shaqeeya wasiir xildhibaan iyo rag badan oo ka tirsan al-shabaab ayuu sarkaalkan si cad u sheegay oo uu leeyahay hebel aad taqaanaan waxay la shaqeeyaan al-shabaab waa sarkaal hore oo dhinaca ammaan ka soo shaqeeyay xilligii dowladda Farmaajo gulufkii dagaal ee al-shabaab 2022 madaxweyne xasan sheekh la galay laakiin hadda wax shaqo aanan hayn oo ka sheekeynaya waxyaabaha uu indhihiisa ku arkay laakiin marka hore waxaan ka codsanayaa sida caadada ahayd inaad muuqaalka like saarto si muuqaalkeena uu meel dheer u gaaro dadkana ay u ogaadaan xogaha daahsoon ee noocan oo kala waxaan ku fasaxayaa muuqaalka ninkan laakiin muuqaalka like saar subscribe soo dheh ila daawo qawaariijta la shaqeeya hadduu yahay sarkaal amni iyo hadduu yahay sarkaal shibila mas'uulka ka sareeya wuxuu ka shaqeeyaa ha ogaado midka ka hooseeyana wuxuu ka shaqeeyaa ha ogaado taynilay waxay ku soo dileen nin aad u shaqeynayo bulshadu jeclaan qaraxyada iyo dilalka iyo baabiinta iyo xasuuqa shacabka iyo qaranka أنا وعثمان عبد فارح أنا واحد تتل هذا مليه لكن سركال أمني هراء وسوي شقيانا حل هراء وأندوي هذا مركي لبضع السنة أو كل واقعي حسن شيخ أو الوسط نان كأفشر يا شباب أنا أنو شيء بلاه نقول يكسو تجاسن قرن كا قل شقي ولي بعاوية وأمني أن أمني أن واقعني دقمة هذا أن شغلنا كنحلين قدومية هذا دقمة أو شغلان لا شقينا وليبا لا تلي أمني وأنا أحاسك أنا حبت أن سداهي ومدرنا أصلا تيفيجا وهري مدوي وحيال أن بالشدو قرن كنا كبر ركسنين ما عرفت الدولة دون كبر ركسنين أجد دولة مركي اللي يراد الدولة وشعب كوي ضد كوي قرن كنا وشغالها وشغيوي أوكي وحنا كبر ركسنين وإن أنت بدن واحد عاب بنانك لقشوا واللي يرا كر يكيمادين ما يلا كر يكيمادين سكوب بريجنا مرة في سنة isku bariya la gobolka Banaadir wax dhaafsan maaha dhacdooyinka la xiriira amniga bal matalan waxa mucjiso ah oo nasiib xumo ah aniga hadda TV-ga ka hor ilaa 5 clip ayaan ka hadlay anoo dalbanaya madaxda qaranka ugu sareeyda haddana intii aan wataa wax lamida iyo anoo baraarujiyo rabo qaranka ruuxiisa iyo shacabkaba si isaga garabsadaan waxa xanuunka nagu reebay oo aad u faraha badan in mudada nalaynay oo xasuuqay wax saxan inuu sameeyay si la saga kaasha laha iyo xogta aan ka helay waa aan baaray arrinkaas wax baaritaan ku sameeyay research ku sameeyay waxaan ogaaday aqoonta amniga oo leeyahay masiibadu meesha aan u malaynayno ama gacanta meeshan ku taagayno inay sabab jirinba waxa ka shaqeeya maamulka gobolka Banaadir qayba kamida qaraxyada iyo dilalka iyo baabiinta iyo xasuuqa shacabka iyo qaranka ayagoo xasaanad la ka shaqeeyaan dawladda waxa loo doonanayaa idiga muhiima idikaarka muhiima waxa cadon haya idiga la qaadanaya ka bacdina qawaariista loo shaqeynaya wal xasuuqaya dadka xasaanada la leeyahay hay'adaha amniga waa looga dhuumanaya idiga iyo xasaanadaba waxa nasiib xumo ah hay'adaha amnigu waxa ay goobayaan way wardiinayaan mararka gabal ayaga ilaalinaya ayagoo ilaalinaya dadka laynayaan waa waxaan meeshaan u imidooyay bal matalan hadda hulwadaagan joognaa Soomaa gudoomiyaha degmada jooga Bashiir Cabdi Maxamed Aliila Maxamed Xoosh Aliila Bashiir Cabdi Aliila qawaariijta la shaqeeya asaga laftiisa qawaariijta ayuu la shaqeeya waxa ana cadaynaya document cadanka haya oo la wadaagi karno bulshada la wadaagi karno okay qofkaani waa qawaariijta la shaqeeya wax sahlan ma xabsi baa lagu maranaya dalka dawladda leeyahay maxamed ali yariya soo cadaymaheedii iyo documentiyada haya waliba kaligi ma waa shabakadan okay waa meelaha aan ka ogaaday waa wax aan TV-ga la imid waa waxa mudan in la ogeysiyo qaranka bulshada shacabka looga digo waxyaalaha aynkaas halkan isla TV-ga waxaan ka codsanayaa 5 jeer aan hore u codsaday madaxweynaha dalka u sareeyay iyo ra'iisul wasaarihiisa
mid ka mida inaan la kulmo maxaa yeelay xog waxaan hayaa 3 sano aan aruurinay halista ii dhimano maxay tahay wax halista oo noo dhimano ma jiraan maxaa yeelay 2003 kunaan isugu xiranna 3 kun aan isugu xiranna oo naxsuuqaya waxaan naxsuuqaya ee dhikar qaran kuwa haystaan naxsuuqaya oo noo fududeynaya qawaariijta noo fududeynaya qarax buruuf lagu sido oo gudoomiye degmo sido oo xogeeye degmo sido oo taliye qayb degmo sido asasiino loo maleegayo qaranka iyo shacabka bal matalan waxa dhacday waxa cajiib ah oo goobjoog soo ahaa gudoomiyaha degmada howlwadaaga 2 mooto wuxuu saaray ciidan shibila taynilay waxay ku soo dileen nin aad u shaqeynayo bulshada jecleed oo tuugada iyo waxaas hay'adaha amniga ka caawin jiray oo mirqmirq la yiraahdo waa soo qaariji kaw maxay ku dileen waa loo diray asaga gudoomiyaha u diray danta oo kala haya cajiibahay qawaariijta tiri ninkaas ilaan ka marmara weynay ee la dilo waa xogtahay ayadoo codanaya haddaan cadeyn waayo ana xabsi ku mudanaay inuu isagu inta degmada ciidanka ka diray ay soo dileen qof mu'adin oo shacab wala sideen karaha okay waxaas waa raqiis qaraxyada aan ka goobno laga goobo hay'adaha amnigu ay ka goobayaan garaashada iyo meelo qaas iyo kontaroolada waxa la socotaa in 3 askari ay taagan tahay kii kaamirada kii nabad sugidda kii biliiska ay taagan yihiin meel ka sokayda aqar wax taagan yahay waxa sida dadka noocaas ee dhikaara lagu sidaa ana rabaa inaan cadeeyo laakiin waa inaan helaa mas'uuliyadda dalka ugu sareysa sababa jira awgeed waxa dhacday hadeer kaliya ma waxaan ka hadlayaa waxa dila dhageysataa hal sanaan si ay dhiida waxaan siinay rabad ila dhageyso hal sano waxa nasiib xumo ah in adawgii la siinayo xogtayda waa nasiib xumo aniga xogtayda ay ku soo laabanaysa waxa nasiib xumo ah in madaxtooyada taliye jananka hadda haysta madaxtooyada jooga oo ninka koobaadii wardiya skuuradka fiibida madaxweynaha xasan aadan afwan xasan aadan leela xil aan anigu madax u ahaa janankan soo mar oo isaga madax u ahaa anoo taa ka faa'iideysanaya baan waxaan u maray inaan qabta wax noocaas waxa nasiib xumo ah wixii aan u maray oo aan qabanayay inaan qaran ku qaban oo ay dadkii shacabka xasuuqeen waxa nasiib xumo ah inaan madaxeeyaan dhigtay halka madaxeeyaan ku dhigtay halkaas waxa fadhiyay maslax oo waxa fadhiyay wiilka madaxweynuhu dhalay jananka oo baray labada korneyl oo heeganka sare lahayd ila saraakiil fadhis madaxeeyaan dhigtay markuu baraka bacdiyaan waxaan yiraahdaan cadeyn waayo liida laguma layn dadka laguma xasuuqin liida bahalnimaha iyo hilibka dadku iyo cunaan ma dhicin wax dhacay ma ahayn okay waxa nasiib xumo oo hal nasiiba ah in la yiri hadeeraan ka daba imaanayna halka waxaan ku sheegay aaladda ay isticmaalaan maxaa yeelay waxaan lagu baraarugsanayn isticmaalaan oo musiibo ah meeshan ka sheegay sayidka qalaba ku xiraa isticmaalaan qawaariijtu oo ninkaas ku xiraa gudoomiyaha degmada howlada ku xiraa waa system degmada waa ku xiran yahay waa system sidaas aan u sheegano system xiran way oo qawaariijtu adeegsanayso okay waxaan marka waa dawlad koosnool keligi ma ahan waa balaaran yahay aad u balaaranta okay su'aal bad su'aasha waxa tir amad qatar amni ku gashaa qatarta amni oo ii dhiman maxay qatarta noo dhimano haddaan waxa noocaas waa soomanahay haddaan waxa noocaas ka aamusno oo aan qarino ama ka baqno maxaan anaga dayuusin baan noqonaynaa wax liitaan noqonaynaa waxa aan 33 sano u baaba'sanaana wax noocaas
waxaan ku talinayaa amaan cod dheer ku sheegayaa hadduu yahay sarkaal amni iyo hadduu yahay sarkaal shibida mas'uulka ka sarreeya wuxuu ka shaqeeyaa ha ogaado midka ka hooseeyana wuxuu ka shaqeeyaa ha ogaado laakiin qaraxyadu waxay maraan eedikaar iyo sharci markii laga reebo wax yar oo loogu talagalay maaragtay in ayagu ku gambadaan cunug yar oo la warsaayo inta gobolka isku agtuuray waxa laga warrabaa markaas uu shuuta warsanayo ama hay'adaha amniga warsaayaan halkaasan soo marnay kuwa la qarinaya halkaan jooga kuwa la qarinaya taliya qaybiya kuwa la qarinaya gudoomiyaala kuwa la qarinaya xogayaala waxa cajiiba gobolka Banaadir qaraxyada ka dhacay ganacsadaha hotel weyn gobolka Banaadir kulaha afliya hoteeladu u xil saaran yahay ninkaas waa ganacsadaha waa nasiixo marka waa ku soo celinaya 10 kilibaan duubay kilibyada aan duubay waa maqlayaan maamul galbeedyada madaxdooda shacabkuna waa maqlaa waxa ra'iisul wasaaruhu uga jawaabi laaya ama madaxweynaha qaranka uga jawaabi laaya waa nasiib xumo way xasan qof iyo la hadii aad doonayn mobilkii xogta ku jirta qof iyo codka kugu soo celida maxaa yeelay 3 sano waxaan ugu shaqeeyay shacabka Soomaaliyeed sida ay xaq ay ugu lahaayeen waana waajib ilaahay waa adoonsadeen aaminsana qof kasto qaangaara yaan la dhihin dalka Xasan Sheekh Khaliya ayaa madaxweyne yaan saas loo fiirinay inta iska dhaafo waxa mucaaradada oo iska daayo qofku ha garto waajibka diintu ku leedahay oo dalku ku leeyahay oo dadku ku leeyahay oo yaa taadaan iska dayn intaasan ku talinaya hay'adaha amnigu meesha ay ka goobayaan kama jirto qaranku meesha uu ka goobayo kama jirto shacabku waa inuu la shaqeeyo hay'adaha amniga kaamirada waa in aad loo isticmaalaa oo la xirtaa waa ku talinaya mid